الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد يا ايها الاخوه الاكارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كليبا waxyaalo yar waxaan ugu talagalnay oo maaragtay anashiid iyo wax yar oo aan ciyaalkii iyo maaragtay inakuba marka insha Allah taadi baan dhiganaynaa kaliya maaragtay sheekheena noo jooga iyo barnaamijka horay ka bilaabo doonaa walaakin sheekh Jawaarna noo daadahin doonaa intaas maan ku soo gagooynaa wajazaakumullahu khayr barakallahu fiikum kulleyba elaan kala daan ku darnana sheekheena hadda maaragtay uu safri doonaa Sweden buu socdaa kadibna dhulkii buu aadi doonaa insha Allah waraaqadan la siiyay magac iyo telefoonka ku qoran lagu yiri si aan mar kale niila soo xiriirno kulleyba maaragtay taas waan u qoranaynaa oo inaad qortiin si taxka niigu soo dirno kulleyba waxana war kale na soo gaaray khayra inuu Sheekh Abdiraxmaan Bashiirna viisihi helay kadibna insha Allah waqtigu niimaadana saan kulan sidan oo kale aanu sameeyno insha Allah ta'ala jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزيلا أخونا نصر علم خير الله سيو برنامج كان health safety إعلام كينو شيء وحين لجوجا ولكن شيخنا عبد الرحمن برخة بود وعاد وذكرنا يسامونتي كدركسنتي باركور كيسة دعوة أهان يقون علمي أهم إن شاء الله تعالى وحبضن مرة إن تريو شيخ لفتقيسو مرة وين وحبضن لشيخ شيخو لكن ذاتك أنا نكور قبل وحان أوران كرا ولا لقار كود وصومالي وين رجوا قاعد يتودع كرتين يسلفوقي أما ما هو شيخنا إعلام كين هلا سوقيب كرا علماء دار جيبوتي أتكو قيمة بدل الدعوة ده صدم في سنة ودم بيسي كجري اللي يرد ويأتكو جعليهين أن مرخاتي ككعي كرو أنا جاي دلا فديا أبا فوتي قف جرا اللي يرمر قوهانا فرسمانا دعوة دين كلوسو ديبي مركا وحان رلها وحو كمدي هي ذاتك علامة جيسك أفريكا رنتي دعوة الإلهي سبحانه وتعالى أبن ضحي سي أمدو دي مجتمعو ذا أي وحو تران ميرقس تيجوده مركا شيخ عبد الرحمن برخة بود جيبوتي أيو كيمي وحانا قاعد سنة رنتي جالية درير جيبوتي وحو كغيب قال المؤتمر كي لستر كدعي مؤتمرات بدن أيو كغيب كلا مركا مقالة ذاك UK وحنا رجالية درير جيبوتي نويب وحنا ويجوغان ولنتي لقى قاري كرو شيخ وحرمنا إن ولا يدين درسدي يعني علماء والله درسدي وقرن كرتين جيبوتي بكيمي دي مدنا ومشغول سنايا وحكم مشغول سنة حفيز مركا وحرجيني إن شاء الله تعالى إن خبرة يأقوانتا كجرتا أن كفا إذي سنوس ولكن نسب شيء إن شاء الله موضوع هنتي موضوع وحرجيني إن خصية إن دتكينا قلبيتك كنا ندور كي كسوها جري قفك مسلم كائن ويشو مرجع يربير مال ولامو وحكاقاته موضوع عاصو الشيخ إن شاء الله تعالى وحنفل يادتكم موضوع كانوا عمل الإسلام إلى أمه مركز الشيخ موضوع عاصو جعلها إنه ناقع هذا بقو إذن كإلهي وحنكسو دويني يا ميكروفون كالشيخ خير الله سيئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ولا الله يرجع يدوم ربا رجل جبوتي والماتتين ولا الله يقار إذن كمدا إذن باقي فردقان بيدين كيران باقو جبت كسو جوابتين runtii aniga waxay tahay maamuus iyo sharaf inaad timaadiin idinkoo inta dhan rag iyo dumarba si aad ii dhegaysatiin marka waad mahadsantihiin ilaahay raalliha inaga noqdo ilaahay khayr siiyo qofka cid wax loo weydiiyo ilaahay baa ugu weyn jalla wacala marka ilaaha wanaagsan baaqaad ka soo jawaabteen abaalkiisa idinka siiyo waxaan ahay reer Djibouti waxa la qariyo la dhunta maaha wadan baan ka wada nimid
wada deganahay taariikh baan wadaagnaa dhaqan iyo hiddaan wadaagnaa afaf baan wadaagnaa af cafari af carabi af soomaali marka inaan reer Jabuuti nahay oon caawa halkan joogno oon ka wada hadlayno wax ifiya aakhiro wadanahay inoogu jirto runtii wax lagu faano adduunka diaspora dadka ka yimaada wadamadooda inaga waa laynaga fiican yahay oo dadyoga kale waxaa ka dhexeeya xidhiidh adag iyaguna iskaga warhayaan wadankoodina ay kaga warhayaan laakiin inaga waan ognahay xidhiidhkeena inagaan iskaga warhaynina uu tamar daran yahay ka wadankeena aan kaga warhaynina uu tamar daran yahay marka runtii fadhigeenan caawa aniga gaar ahaan ii farax gelinaya daacidaad u timaadeen waa aniga waxaa laydinku yidhi wadaadkii baa joogaa marka inaad dhegeysatiin baad u timaadeen ilaahay khayr idin siiyo reer Jabuutina dee waan isjecel waan isnaqaanaa qalbigooga iyo dhagahooga inoo furaan had iyo jeer hadalkayga ay dhegeystaan waxaa isku kaaya xidhay reer Jabuuti isma wada naqaano oo wejiyada iskama wada naqaano laakiin baaqayagi iyo dhawaqayga gaadhay ilaahay baaqayagi iyo dhawaqayagi macnaha waxaan ka wadaa diinta islaamka aan faafinaynay ayuu ilaahay u furay dhagahoodii iyo laabahooda marka reer Jabuuti dhammaan waan jecelahay alxamdulillah aniga waxaan u fadhiyaa inaan diinta ilaahay wanaagsan inagala hadlo siyaasad inaan ka hadlo uma fadhiyo way dhici kartaa walaalaha qaar rag iyo dumar inay sugayaan inaan siyaasad ka hadlo siyaasadda reer Jabuuti waa lagu kala tegsan yahay oo dadku way badan yihiin qofba aragti buu leeyahay siyaasadda haddii la yidhahdana waa subjective qofba si buu u arkaa in wax loo hagaajin karo oo wax loo daaweyn karo qofba sidiisaa la saxsan si ilaahay uu soo dejiyey weli sidaa waxaa loo wadana oo objectivena ma jirtay waa subjective hebel wuxuu arkaa in sidaa wax loo wado heblaayo waxay u aragtaa in sidaa wax loo wado makanaa saxa adduunka majority baa lagu kala baxaa marka aniga ma rabo inaan siyaasad ka hadla ma rabo siyaasad bas wadanka waxaa ka socdaay waa muran siyaasadeed oo sidee wax ku wanaagsan yihiin weeyaan waa inay iska fiican tahay ma xuma haddii la isweydiiyo sidee wax loo wadi karaa oo anigu waxaan arkaya hebel igu diido ama heblaaya igu diido ana aan ku diido in la isku diidana in loo arko wax caadi oo ilbaxnimada kamid ah saasay u baahantay kolley in la isku fahmo qur-aankeena markaan akhrino waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ilaahay baa la hadlaya malaa'igtii jala wacala wuxuu ku leeyahay waxaan abuurayaa bashar markaa way malaa'igtu ku leedahay rabbow bashar maxaad ku falaysaa adduunkay qasayaan iska dhaafa abuurin ilaahay baa makhluuqaadkiisii la hadlaya malaa'ig waxbaan abuurayaa ka warrama allow iska daa malaa'igtii baa ku celinaysa may waan abuuri anigaa aqaanaa inay dadka wax fiicani ku jiraan may allow iska da malaa'igtii baa ilaahay hadal ku celinaysa ilaahayna dood buu malaa'igtii u furay in la doodo wax la isweydiiyo ayaan qur-aankan ka faa'iidaysanaynaa wayas'aluunaka can ilanfaal qul wayas'aluunaka can ilmaxiid qul wayas'aluunaka qul wayas'aluunaka qul waa qur-aanka waa naqaanaa waa caadi nabi alla waxay ku weydiinayaan shaygaas waxaad ku tiraa sidan kan bay ku weydiinayaan sida question iyo response waa deba waa dood waxaan ka baranaynaa qur-aankeena kariimka ilaahayna siiyey jala wacala markaa siyaasad haddii la yidhaahdo waxay ku fiican tahay sidaa loo fahmo waa muran iyo dood cidda garta haysana ilaahay baa yaqaana laakiin wix lagu kala baxay waa majority sawaabkiiyo runta ayaa haya ilaahay baa yaqaana laakiin waxaa lagu kala baxay adduunka waa majority innaga markaa reer Jabuuti siyaasad kama hadlayaan waxaan ka hadlayaa wax isku objective hadalkayga soo objective macnaha cidna ma taageerayo meel lama jiro siyaasad waa subjective waa muranka qur-aanka inoo baneeyey ilma nebi aadan maankooga isku wada mid maaha aragtida isku wada mid maaha ilaahay jala wacalaa baa yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuka walidalika khalaqahum buu ilaahay ilma nebi aadan inay iskhilaafaan kama dhammaadaan buu ilahay oo ka zuuli maayaan sidaasaa loo abuuray buu ilahay inay iskhilaafaan marka in la iskhilaafo oo siyaasad la isku khilaafayo waa caadi khilaafkaasi inuu dee dhiig iyo dagaal iyo wax la halmaalay inuu tagana islaamkuna way naga xaaraantinimeeyey horumar iyo cilmina maaha aniga markaa siyaasada uma fadhiya inaan ka waramo bas waxaan jecelahay siyaasadda hadalkaa guud inaan ka idhaahdo
si xadaariya dilmaaniya très civilisé in loo murmo oo loo wada sheekaysto oo la isku fahmo iyadoo nabadii iyo dalka loo daneynayo waxa weeyaan waa indispensable marka way dhici karta walaalaha qaar inay iga sugayaan siyaasadii sidan bay ahayd UNP sidan bay ahayd USS sidan bay ahayd aniga ma rabo inaan fadhigan sida kaga hadlo waxaan jecelahay waxa dantu ay noogu wada jirto inaan ka hadlo laakiin siyaasadda aniga mowqifkaan ka qabay waa sida waxaan diidanahay waa inaan fahmo waxaan diidanahay qofka kale inuu ila ogolayn inaan ku ilaado maxaad ila ogolaan weydana waa khalad kuma odhan karo aragti buu leeyahay aragti baa leedahay qofka kale aragti buu leeyahay laakiin adduunka majority iyo sida loo kala badan yahay lagu kala baxaa quraanka ilaahay jalla wa ala iyo xadiiska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu yiri waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara qof kastaba khayr wuxuu sameeyay waa loo miisaamiyo oo heli shar wuxuu sameeyay waa loo miisaamiyo oo heli eeg aakhira waxa lagu helay waa miisaan camalkaaga lagu miisaami meesha uu bato ilaahay wax kugu siin hadduu camalkaagu wanaag u batay jannaad heli hadduu shar u batana naar baad heli marka miisaanku waa majorité waa al-aghlabiyya la majorité camalkaaga baa lagu miisaamaya ilaa aakhira waxa lagu kala helay waa majorité weeyaan qofku xumaana uu leeyahay wanaagna uu leeyahay maalinka qiyaamaha xumaantii wanaagii baa loo miisaami camalkiisu meesha uu batay buu tagayaa marka adduunka wixii lagu kala socdaayay waa majorité halkana waan garanayaa walaalo badan baa dhici karta inay nagu jiraan oo wadanka waxaa ka socdaa qaar kood baa UNP qaar kood baa USN qaar kood baa waxba ahayn intuba garba u leeyahay kana inuu USN noqdo xeer buu leeyahay kana inuu UNP noqdo gar buu leeyahay kana inuu waxba noqdo dhexdhexaad iska hado intaba gar buu leeyahay diintu waxay noogu yeedhay qofka inaan ogolaano kownuhu insaan il faut accepter l'homme en tant qu'homme qofka inaan yeelo oon ku yeelno dadnimadiisa qofku waa dad waxbuu rumaysay waxna uu diidi karaa waxbuu jecel yahay waxna uu nici karaa xorna uu yahay ilaahay baa qof kasta baa abuuray isagoo xor oo calooshoodii qof walba wuxuu ka soo baxay isagoo xora marka dadka xornimada in laga qaado maaha dadka waa la qanciyaa waxbaa loo sheegaa waa lala hadlaa qofku waxa hadduu ku qancana ahlan wasahlan hadduu kugu diidana ahlan wasahlan qofku xor buu yahay waxay u baahan tahay wixii siyaasadda waddanka marka laga hadlaya aniga waxay la eeg tahay inaan contextka iyo kaadarka iyo taarka inaan ku fahno dagaalka iyo cayda iyo reeraha iyo qoloqolo waxaasay khuba anaga mustawaha manihin sidaa uu jawhar sheegayay 30 sano wax ka dhoobaan Djibouti ka dhex cabaadayna dadka ugu yeedhay diinta ilaahay jalla wa ala qofka reer Djibouti inuu wax noqdo inuu adduunka wax ka noqdo qofka reer Djibouti inuu magac yeesho inuu karaamiyo dadnimo yeesho wadanka Djibouti inuu culays yeesho 30 sano dadkayga reer Djibouti ugu baaqayno waa dadka reer Djibouti waxaan isku jeclaanay weeyaan waa waxay dadka reer Djibouti noo dhageysanayeen 30 sano waxaan ka shaqeynay gabadha reer Djibouti sidee u noqon kartaa gabadh karaamo leh oo ilaahay taqaana ilaahay markay taqaana nafteeda ku kalsoon waalidkeeda taqaana odaygeeda ixtiraamto odaygu xaaskiisa iyo gabadhiisa oo ixtiraamo 30 sanadood baan leenahay war qofka reer Djibouti ha noqdo qof karaamo leh Djiboutina ku nool cizi iyo karaama adduunka markuu tagana cizi iyo karaamo ku nool 30 sanadood message-ka reer Djibouti aan u gudbinayay waa message-ka c'est un message très universel cosmopolite international annaga waxaan jecelahay inaan message-ka ka shaqeyno siyaasadda noqoto waxaan leeyahay waa lagu kala tagsan yahay qof walba position-kiisa la dhowro qof walba position-kiisa lagu ixtiraamo reer Djibouti baa la wada yahay on partage le même sol on partage le même territoire on partage la même richesse qof walba wuxuu rumaysan yahay siduu yahay waa in lagu sito lagu xaq dhowro laakiin majority lagu kala baxo ayaa adduunku baa sidaas soo socda kelmadda waan iska dhaafiyo waxaan idhi si guud waxaan rumaysanahay sida kelmadda aan idinku ilaado walaalahay reer Djibouti rag iyo dumar iyo rag baan idin jecelahay anaga nolol kale ma lihiinba nolosheedu anaga waa reer Djibouti adduunka waxa la yiraahdaa waxa jira rag la yiraahdo consultant qofka consultant iyo adduunka lacag buu qaataayo wuxuu ka iibiyaa khibrad consultant iyo khibrad buu iibiyaa cilmi waxa la fadhiya saacada uu ka iibin 5 kun faran buu ka qaadanaa ma 10 kun faran anaga mujtamaca reer Djibouti waxaan nahay consultant laakiin consultation ga depuis 30 ans waxaan ku shaqeynaa bilaash in ajri illa ala Allah wama sa'altukum min ajrin fahuwa lakum ajri wixii aan idin weydiiyay nabi maxamed waxaad ku tiraahdaa sallallahu alayhi wasallam idinkaas kala ku dheh aan waxba idin ma weydiinay wixii aan idin weydiiyo idinkaas kala ku dheh 30 sanadood baan cabaadayna
cabaadkayga cidi mushaar naguma siiso cidna mushaar kagama doono nabi maxamed baa صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس عليه الصلاة والسلام hodantinimadu waa hodantinimada qalbiga buu nabi maxamed yidhi عليه الصلاة والسلام le fait d'être riche ça se situe au niveau du cœur qofku wuxuu hodan ka yahay qofka maalqabeenka dhabta waa maalqabeennimada qalbiga weeyaan maaha jeebka maaha inaad lacag haysato maalqabeen laguma noqdo waxaa maalqabeen iyo hodan lagu noqdaa le fait d'avoir un cœur large qofku markuu leeyahay qalbi aad u ballaaran oo furan oo cid walba u furan ka caayaya ka xidhaya 18 bilood baan xidhnayn waan sheegay hadda kahor baan sheegay 18 bilood ciddina xidhay fariina waan u diray waxaan leenahay ilaahay hortiisa wax bay naga tahay waxba kama doonaba 18 bilood oo gardarre ahayd laakiin saamax ifi aakhir saamax buu naga yahay waxba kama rabnaba il faut avoir le cœur large waa inaan yeelano qalbi furan waa inaan yeelano oo ballaaran 30 sanadood walaalahay rag iyo dumarba waan idin jecelahay annaga waxaan ka shaqaynaynaa bulshadeedu inay noqoto bulsho wanaagsan oo caalamka loogu yimaado qurux iyo dadnimo qurux muuqaalka iyo midabka qurux akhlaaqada iyo qalbiga qurux caqliga iyo cilmiga quruxdu waa saddexda la beauté intellectuelle la beauté du savoir la beauté du cœur iyo la beauté physique qofka inuu muuqaalkiisu qurux badnaado noqdo qof labisan oo silhouettekiisu dadka uu soo jiito إلهي بقرآن كيسا كوري قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بالله جل وعلا واحد كنت لنبي الله قروح ذا إلهي الدومي سوسو صاري أي أودي ذا كله قروح ذا إلهي با نسي واحد كنت لنبي الله قروح ذا إلهي الدومي سوسي أي أودي ذا كله النبي الله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا waxaa tira adduunka muuminiinta iskale midka ilaahay rumeeyey cid kalena waa la qaybtamayaan laakiin ilaahay wuxuu yidhi khaalisatan yowm alqiyaama maalinka qiyaamaha quruxda muuminiinta gaar iskagala buu ilaahay yidhi jala wacala 30 sano walaalahay waxaan ku cabaadaynaa mujtamaca reer jabuuti gabadhuna ha fiicnaato hooyadu ha fiicnaado inankuna ha fiicnaado aabuhuna ha fiicnaado waxaan ku cabaadaynaa inaan ka dhigno jabuuti un territoire d'une vie idéale territoire lagaga nool yahay nolol wanaagsan ee c'est fortement possible waana wax dhici karayo waa suuragal weeyaan alxamdulilah waan idin mahadnaqaynaa maanta iyo berriba waayo baaqaygii waad ka soo jawaabteen ma aha c'est pas un message politique bulshadeeda xiriirka naga dhexeeya xiriir siyaasadeed ma ahayn kuraasi maana rabin ladoorta maana lahayn xildhibaana ma ahayn wasiirra ma ahayn madaxtinimo ma rabin depuis 30 ans bulshadeeda waxaan u sheegaynay un message fortuit gratuit bilaash buu ahaa laakiin wuxuu ahaa un message porteur d'espoir wuxuu ahaa fariin bay ahayd fariin ididiili iyo raji iyo amal xambaarsan bay ahayd fariin aan wax ku doonayn ma ahayn intaa waan dhaafi walaalahay kelmadan caawa idinku oranayo idinku dheeran maayo waxaan jeclaan sheekaysano wax isweydiino hadalkayga waan gaabinaya kelmadda aan jeclaan idiin sheego walaalahay rag iyo dumarba Jabuuti meesha aan jecelahay ee ilaahayna dhagay waan ku noolahay waan ku qanacsanahay kartoonadeedii iyo looxaanteedii iyo jiingadaheedii iyo xawayaankeedii iyo riyaheedii iyo adhigeedii inta waan jecelay waa meeshii ilaahay adduunka uu naga dejiyo waan ku qanacsanahay idinkoo aad ku qanacsantihiin halkana duruufun baa ina wada dhigto waan ognahay waxa lagu qancay waxa weeyaan waa territoire-kaaga meesha aad garanaysid caradeedii aabaheedii iyo hooyadeed inankeedii iyo gabadheeda meesha aad garanaysid eed karaamiya sharaf ku leedahay salaanta lagaa qaadanaya salaanta aad bixinaysid meeshaasaan jecelay halkana waxayna dhigtay waa duruufo dhammaantood waan garanaynaa kelmadaan idinku lehay waxa weeyaan waxaan u baahannahay dhulka aan joogno iyo adduunka meel kastoo joognaba inaan reference yeelano inaan repair yeelano waa daruuri waa lagaba maarmaan noloshani waa taayirka rugmanaya maalinkii ilaahay uu keenaba waxaad arkaysaa waaye cusub habeenkii ilaahay uu keenaba waxaa jira waaye cusub waxbaad la kulmaysaa nolosha tv-ga wax cusub baa kaaga soo bixi shaqada wax cusub baa kaaga soo bixi ilmahaaga wax cusub baa kaaga soo bixi odaygaaga wax cusub gabadhaada wax cusub waa nolosha rugmanayso maalinkii ilaahay keenaba wax cusub baa kugu soo baxay waxaan u baahannahay waxaa cusub sidii aan ula dhaqmi lahayn ama uga hortegi lahayn waxaan u baahannahay nolosha de référence repere inaan yeelano waxaan isku refereyno wax markay naga hor yimaadaan waxaan ku noqono nidhaahno arrinkani talow siduu ahaa ma sidan baa saxa mise sidan baa khalada reference ama repair aan ku noqonon eegno oo ama ina saxa ama inagu khalad baa tahay inaan yeelano waa daruuri waa laga maarmaan à trois niveaux
saddex mustawe ama saddex heerba af soomaali saddex heer inaan repeer ku yeelano waa sax. kow heerka koobaad ama nivooga koobaad waa niveau des idées ama intellectuel. marka laga hadlo waxaad rumaynayso dhulka aad joogto, waxaad rumaynayso maxaad rumayni maxaanad rumayneyn, caqligaaga maxaad liqsiini maxaad xambaarsiini maxaanad xambaarsiineynin, maxaad naftaada ka dhaadhicini maxaanad ka dhaadhicineynin. ilaa adduunka afkaar baa wareegaya. maalinkii ilaahay keenaba intaayoo journe waa wadanka soo baxa, habeenkii ilaahay keenaba intaayoo jiite journaal televise ayaa mara wararka, habeenkii ilaahay keenaba intaasoo warbaa maraya websiteyada waa wada ognay. waxaasi afkaar baa saa u dhex socota iyo wax la rumeeyo. afkaarta adduunka cararaysa maxaan rumaynayaa maxaanan rumayneynin, meelaan u celiyo oon idhaahdo fikradani waa khalad ama waa sax inaan yeesho waa daruuri, indispensable, waa lagama maarmaan. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaan ka hadlay waa qur-aan, hawadeyda ka hadli maayo. waxaan ka hadlay waa qur-aan. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam adduunka buu doondoonay, khaaliqii abuuray. wuxuu isku dayay inuu raadiyo ilaahay adduunkan abuuray jala wacala. ilaahay wuxuu yidhi falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaba qaala hada rabbi falamaa afala qaala inii laa uxibu alaafiliin. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuu isdoondoonayaa, wuxuu doondoonayaa wuxuu rumeyn lahaa buu doondoonaya. nabiyullaahi ibraahim wuxuu ogaaday adduunka uu ku noolyahay inuu yahay duufaan. waa duufaan adduunku. adduunku waxa weeyaan waa déluge. le monde c'est un déluge. nous vivons dans un monde de déluge. waxaan noolahay adduun duufaan baa ka jira. baraf iyo roob kii dadka qaadaya maaha, baraf iyo roob baa jira. marka laga hadlo qofku wuxuu rumaynayo maxaad rumayni maxaanad rumaynayni. nabiyullaahi ibraahim wuu isdoondoonay calayhi salaam. adduunkan caqligiisu meeshii uu ku tiirsan lahaa wuu doondoonay. caqligiisu muxuu ku tiirsano muxuu rumayni ayuu nabiyullaahi ibraahim doondoonay calayhi salaam. markaa buu ilaahay yidhi falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaba. gobolkii markuu u dhacay xidig buu arkay nabiyullaahi ibraahim. wuxuu yidhi qaala haadaa rabbi, wuxuu yihi xidigan baa rabbigay. falamaa afala qaala laa uxibu alaafiliin. xidigii markuu dhacay wuxuu yidhi anigu waxyaabaha dhaca ma jecliyo, dee waxa dhacaya rabbigay ii noqon kari maayo. rabbigay wuxuu yidhi waa wax joogtaa. ilaaha aan jecla inaan rumeeyo waa ilaaha abadiya, xayaatadiisu abadi. marka xidigii markuu dhacay xidigan baa ilaaha, xidigii baa dhacay. wuxuu yihi xidigani ilaahay ma noqon karo. ilaahay xidigan wuxuu yidhi uu ka wenye. maxaan u jeednaa marka? wuxuu yidhi falamaa ra'a alqamara baasiqan. waa tallaabadii koowaad ee nabiyullaahi ibraahim buu qaaday. xidigii baa dhacay, xidigani ilaahay maaha. haddana dayixii buu arkay. falamaa ra'a alqamara baasiqan qaala hada rabbi falamaa afala qaal lain lam yahdinii rabbii laakunana min alqowmi addaaliin. wuxuu arkay dayixii oo ka weyn xidigii. markaasuu yihi rabbigay waa dayaxa. dayixii baa dhacay. wuxuu yidhi mayi ilaahay waxaan ka baryayaa hadduu i hanoonin waayo, ilaahay hadduu i hanoonin waayo waxaan noqonayaa buu yihi dadyooga lumayo jidkii ilaahay ka anbaday jala wacala. dayaxii waa xidigii ka ballaadhan, dayaxiina u dhacay. markaa wuxuu yihi dayaxana rabbigay maaha. hadduu rabbigay hanuunin waayo xaqa igu hanuunin waayo wuxuu yidhi waan lumayaa oo waan ambanayaa. nabiyullaahi ibraahim isdoondoonaya calayhi salaam. waxaa la yidhahdaa afkii faransiiska wax ku baranay il fait un cheminement intellectuel, un cheminement d'esprit. caqligiisii iyo rumayntiisii buu doondoonaya, wuu isbaarbaaraya. wuxuu raadinayaa qalbigiisu wuxuu ku deguu raadinayaa. markaa dayaxiina waa u socon weyday. muxuu arkay? cadceeddii buu arkay. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء منكم. قال يا قوم إني بريء منكم. wuxuu yidhi cadceeddii buu arkay. cadceeddan baa ka weyn dayaxii. cadceeddan baa rumaynaya. cadceeddii markay dhacdana wuxuu yidhi qaraabo tolkayow waxaan aad rumayseen. wuxuu yidhi anigu waxaan ka ahay beri. xidigna ma caabudo, dayaxna ma caabudo, cadceedna ma caabudo. ilaahay baa ku hanooniyey nabiyullaahi ibraahim inuu ilaahay raaco, ilaahay uu rumeeyo jala wacala. waxaan ka wadaa marka innaga maanta caalamkaan joogno ingiriis iyo reer galbeed iyo meeshay doontaba ha noqoto, xidigaa dhacaya fikrad baa lagu keeni. waa xidigaa dhacaya, caawa lagaa iibinayo, usbuuc baad haysani, usbuuc kadib way ku cuntadi waa tuuri. waa xidigaa dhacaya. bil kadib haddana fikrad kale ad caashaqi, wax kale lagaa iibini.
waxaad leedahay tii hore waan ku khaldamo wallahi tana saxa tii baa ku cuntamay haddana waa tuuri haddana journaal baa wax kale kaa iibini haddana BBC ingiriiska wax kale kaa iibini VOD Soomaaliga wax kale kaa iibini bilbo waxba laga iibini caqligaaga iyo naftaadu ku dhargi maayaan markaasaa tuuraysa sida nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaa aad ka qabsanayso xariga ilaahay adag ilaa aad qabsanayso caqiide adagoo fikrad adag oona weligeed lumaynina waa maxay waa tawxiidkii marka laga hadlo qofku wuxuu rameynayo waxaan idhi waa inaan refer yeelano reference waa inaan yeelano nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam referenshada adduunku way u cuntayn waayeen xidig iyo dayax iyo cadceedu ka guuro ilaahay buu rumeeyey jalla wacala wuxuu yidhi innii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ilaahay baa hanuuniyo wuxuu yidhi waxaan wejigeyga u jeediyey ilaaha cer iyo dhul abuurayoo ilaahay baan rumeeyey buu yidhi tawxiidkii markuu qaatay fikradda tawxiidka acdam alfikr alcaalam adduunka iidee ugu weyn haddii iideeba la odhan karaba iideeba lama odhan karo iidee way ka weyn tahay wax la rumeeyo oo tawxiidka laa ilaha illa allah ka weyni ma jiro wuxuu yidhi ilaahay baan u jeestay ilaahay baan qabsaday ilaahay baa isamato bixiyey markaa tawxiidkii uu ku badbaaday innaga markaa waxaan ka wadnaa waxyaabaha la rumeeyo reference markaan ka hadlayno ilaahay haddaan rumayno ma lumayno ma halaabayno ilaahay baa yidhi waman yakfur biالtaaguuti wayu'min biاllaahi faqad istamsaka bilcurwati اlwusqa la nfisaama laha ilaahay baa saa yidhi jala wacala waman yakfur biالtaaguuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bilcurwati اlwusqa la nfisaama laha qofka taaquudku waa gaalnimo iyo wixii xuduudda dhaafsan baa la yidhaha taaquut ilaahay wuxuu yihi qofka taaquut ka gaalooba ilaahay cidaan ahayn qofka beeniye ka gaalooba ilaahayna rumeeya faqad istamsaka bilcurwati اlwusqa ilaahay wuxuu yihi xadhig aan go-ayn buu qabsaday marka waxyaabahaan rumeynayna waxaan u baahannahay xadhig aan go-ayn inaan qabsano waa maxay waa ayo ilaahay keligii jala wacala marka caalamka aad ku nooshiin dee waan aragnay inama reer Jabuutiyo wax kala rumeeyo waan aragnay oo isku wareero isku buuqeeyo jiraan waa daf aakhirkiina depression baa ku dhaco depressive bay noqdeen noloshii way ka lumeen aakhirkiina sidii way ku dhintay waan tiri karraa 1 2 3 iyo 4 reer Jabuutiyo adduunka ku noolaa waan tiri karraa marka qofku haddaynan u caddayn adduunkan wuxuu rumaysanayaa haddaynan u caddayn oo maalin bafiirad laga iibiyo caawa masaajidkaa saxa habeen dambe kaniisadaa saxa habeenka kale sinaagoga saxa habeenka kale makhbaaradaa saxa habeenka kusii xiga waxaan diin baahan oo dhexdhexaa oo baataar oo la isku geeyaa saxa hadday kolba wax saxa ku noqdaan waa lumi wal halaabe tawxiidka keligii waa saxa haddaa tawxiidka qabsato ilaahay adduunka wuxuu ku dhisay laa ilaha illa allah waxaa la yidhahdaa adduunka o dhan wuxuu ka tarjumayaa laa ilaha illa allah wax laa ilaha illa allah ka baxsani ma jiro cirku dee sidaa u socdo waan arkaynaayo adduunka weli ma maqal taarikhda cirkaa iskhilaafayo cirkiibaa intuu isqabsaday lagu kala tegay ma maqal cirku nidaam buu la socdaa nidaamka ilaahay baa u dhigay laa ilaha illa allah buu ka jawaabaya dhulku ilaahay mar kaliyu dejiyey khalaas dhulkii baa gadooday oo ilaahay khilaafay nidaam buu ilaahay u dhigay dhulkaasi tawxiidku ka turjumaya xataa nafteenna tawxiidka ka turjumayno oo sidii ilaahay ku abuuray inaad u noolaato ayaad ku khasbantay hadda inaga qofka odhan karaayo waa qofkee madaxaan ku soconno mijaahidina kor baan u taagi ilaahay siduu abuuray baan qallibiyo tawxiidkan ku cadfuri ayaa odhan kara maysid sidii ilaahay ku abuuray ayaad naftaadu ka tarjumaysaayo tawxiidkii baad markhaati ka tahay sidii ilaahay keligii ku abuuray baad u nooshahayo sidii baad u soconaysaa diidi maysid gaajaa lagugu abuuray wax cunto waad gaajaan waxbaad cunay iska diid waxba cuni maayo waad dhimanay lafahaaga ka tulaysaa waxbaad cunay waad ku khasbantay ilaahay sidii ku abuuray inaad u noolaato ilaahay keligii baa ku abuuray tawxiid ilaahay sidii ku abuuray inaad u noolaato waxay kugu tahay khasab iyo dirqi bon gré mal gré tu es obligé de se conformer à la vie à la discipline divine sidii ilaahay ku abuuray inaad u noolaato sandulle kugu tahay waad ku khasbantay ilaahay keligii baa ku abuuray ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu muttakhida almudiliina caduda ilaahay baa yidhi cirka markaan abuurayey idinka markhaati idinkama dhigan dhulka markaan abuurayey markhaati idinkama dhiganin idinka naftiina markaan abuurayey idinka markhaati idinma qabsanin cilmina laydinma weydiin
lacagna laynima weydiin waqti iyo xoogna laynima weydiin ilaahay baa keligii cirka abuuray dhulka abuuray idinkana ilaahay baa idin abuuray ilaahay keligii baa intaa abuuray sidii ilaahay uu yiri ayuu cirka iyo dhulkii inagu baan soconaynaa marka tawxiidka hadalkaygu wuxuu ahaa repair iyo reference baan u baahanahay adduunka haddaan weyno waan lumaynaa aakhirka si xun baan u dhimanaynaa marka repair iyo reference inaan yeelano sur les plans d'idées sur les plans intellectuels sur les plans de la confession sur les plans de la croyance qofku muxuu rumaynayaa wax ku tir inaan buur ku tiirsanaano buur c'est indispensable buurtina waa maxay waa laa ilaaha illa allah wa tawxiid caalamkan haddaad buur ku tiirsanaan weydo caalamkan uu kula tegi adigoo ka shubaad arkaysa rasmi ah buur baad u baahantay ilaahay markaad taqaanee salaadaada tukanayso fajrigii subaxa duhur iyo casr iyo maqrib iyo cisha waqtigoodii markaad tukanaysa kitaabka inaad akhriyaysaad ku xidhan tahay cirka markaad ku xidhan tahay lorsque la relation est bonne entre maxaan ku leedahay Allah exalté soit-il et toi-même markaad isku xidhan tihiin tu es serein tu restes serein tu restes tranquille tu vis tranquillement waxaad ku noolaani nolol cajiib oo qabow oo macaan baad ku noolaani ilaahay cirka dhulka abuuray markaad taqaano jalla wacala londonna waad ka dabaalani birmingham baad ka dabaalani leicester baad ka dabaalani ingiriiska madaxaad kaga soconi maraykanka madaxaad kaga socon laakiin sidaa haddaad yeeli weydo ingiriisku isagaa madaxa kaaga soconi isagaa kugu dulwayni hadhowna noloshaada waa la waay marka reference inaa yeelina adduunka repair iyo reference sur les plans de la croyance de la confession waa indispensable waman yakfur bittaaguuti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها همبرجر كان ينجي يبني ساندويتش هبين كسر حلا ينجي يبشى همبرجر يا ساندويتش إيدي همبرجر جورنال بين ينجي يبيع أما واب سيد بين ينجي يبيع وفكر كان بعصوه وحن بصباحي وساندويتش وريستوراسيون رابيد أنت تدري دقلاقات ويقول لك سواقة طاول أنت مركبة فكرة نوع أسبوع ساعة يسكدف waxaad rumaysantahay wax gaboobay ha noqdo daaweyno weligii yaabidkii aan dhacaynin innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun buu ilaahay jalla wacala anaa soo dejiyey waxaygii iyo qur-aanka anaa dhowrayo ilaalinayo ilaahay yidhi jalla wacala fikrad sandwiich iyo hamburgera oo caawa la calaliyo habeen dambena tukala loo guuro waa inaan iskaga tagno ka baxno waxa weeyaan diinteennaasi waa magabowdo وكتاب الله جل وعلا إلهي وتلقى لا أنتو أدون كقرب منه إن لقونا ورايو أولو لشيء ناكو سالينو وحان لكو فكر كي عقل مركا نبه هنية إيمانك وحان سنة ربير توحيد لا إله إلا الله لبع أخلاق مركا نبه هنا الربير ما أنت أخلاق لا ولا نجي بنيه سام نبغ بينه ولا نجي بنيه تي في يواب سد بين نجي بنيه وبتكلم ولا نجي شو أنا قاركين هذا أخلاق ذا اللي نجيب شيء ما أنت كنا له عاود هالكلام فدنا كنا له وإنه كنت قفوا ما ولا فدنا أما سيدي قفوا ما فرقفوا إنه قفوا البيس كجرو إنترنت التلفون كيسي أو قفوا البوقف كم قالوا له شيء كسنة إنه هنساك كرلانه أما أسدني سكرلانه ودخل اللي نجيب شيء ودخل يدب على اللي نجيب شيء إلى دويدو la relation entre les individus la relation de chaleur entre les individus أدقي هذا محيدين دحية أدقي أبها محيدين دحية أدقي وبتكاغا توس محيدين دحية علاقتي waxay ku soo diyaashatay hooyo SMS baan ku soo diray message baan ku soo diray hooyo waan ku soo diray qabowday hooyo email baan ku soo diray waan qabowday waa la kala baxaya waa la kala go'aya jacaylkii l'amour maxaan ku raadayay l'amour du prochain la tendresse عاطفتي iyo qabowgii iyo hooyo aabo walaashay hadalladii xiriirkii nooca ahaa baa lumay oo waxa la inaga yeeshay une relation mécanique une relation maxaan ku leeyahay cybernétique waxa la inaga yeeshay internetka ku xidhan oo ku xidhan maxaan ku leeyahay Facebook iyo ku xidhan ayaa la inaga yeeshay waxay naga halowday الحرارة الإنسانية la chaleur humaine wixii la isku ahaa qaraabanimadii baa dhamaatay in adeerkay ma aqaano in adeertii ma aqaano in abtigay ma aqaano iskaba dhaaf hooyaday iyo aabbahay waana garanayniyo dhaqan cusub baa la inaga yeeshay waxaan u baahanahay akhlaaqada waxaan leenahay repeero waalidka ilaahay baa caza wajalla qur-aankiisa ku yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana tawxiidkii baa lagu xidhiidhiyey ilaahay wuxuu go-aamiyey isaga keligii la caabudo maxaa la raaciyey وبالوالدين إحسانا بولهين لبدي واحد شينا إن الله سمفلو أي إلهي قامين فري
tawxiidki ilaahay keligii baa labadii waalid la raaciyey laba waalid maanta ma jiraan ninkii haweenadiisii isqabay baa ayaa qur-aanka la sheegay inay xuquuq leeyihiin walahunna mithlu ladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja labada qof in iyagoo soo fadhiya sheekaystaan oo wada hadlaan oo isku qoslaan oo yeeshaan des moments intimes surtout dans ce monde que nous vivons maxaan ku leeyahay en Europe labadii qof ay isqabtay relation mécanique inay yihiin mécanique laba gaari ama laba birood oo iska soo horjeeda soo fadhiya noqonin laba bashar laba qof oo walaalo isqabo dan ay ka dhaxaysan inay noqdaan oo wada hadlayo oo sheekaysanayo dareen isdhaafsanaya dareen isdhaafsanaya waa inay noqdaan akhlaaqada marka laga hadlo reference baan leenahay waalidkii baa loo tulaya qaraabadii baa loo tulaya hadalkii naxariista ahayd baa jirta ilaahay baa yidhi walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa labadaada waalid ufa ku odhanin baa la yidhi ha fogeyn buu ilaahay yidhi jala wacala labadaada waalido ha durkin baa la yidhi akhlaaqada marka laga hadlayo zinadii baa la diiday waxaa la diiday waxaa maanta caalamka lagu hadlay maaqiyaaj bukhtuus waxaa loo bixiyay maaqiyaaj bukhtuus guurka cid walba u dhexeeya gabadh wiil maaqiyaaj bukhtuus waa akhlaaqad maanta waa la iibinayaa inaga tayni waa la diiday waxaa la yidhi guurka waa labiyo dhadig wiil iyo gabadh raalliis ka noqday ayaa sharciga isku guursan kara uu ilaahay jala wacalaa kitaabkiisa inoogu sheegay nebi maxamed noo cadeeyey sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlo akhlaaqiyaadka l'éthique le moral et l'éthique dhaqanka iyo akhlaaqada marka laga hadlo waxaan leenahay suurat alxujuraat culamada qaar ay yidhahdaan suurat alakhlaaq alxujuraat waa qur-aanka waa la wada yaqaanaa suurayaadka loo xafidsan yahay weeyaan culamada qaar suuradda waxay yidhahdaan suurat alakhlaaq waa la suuqaat de l'éthique ama du moral ilaahay wuxuu kaga hadlay moraalka jala wacala suurat almu'minuun ilaahay wuxuu kaga hadlay moral albaqara ilaahay wuxuu kaga hadlay moral jala wacala intaasoo suuradood buu ilaahay kaga hadlay moraal maxamed arashid sheekhi ciraaqi alcalaama waa ciraaqi kutubta uu qoro wuxuu ku yidhahdaa ilaahay jala wacala marka laga hadlayo fiqi maxaa xalaala maxaa xaaraama maxaa weysada jebiye maxaa weysada jebinayn xajka maxaa ku banaan maxaana ku banaanayn cumrada maxaa ku banaan maxaana ku banaanayn guur waa sidee guurka maxaa buriya sidee la isku aayaadka iyo qur-aanka ilaahay uu kaga hadlaya arrimaha noocaasa waa 500 aayadood laakiin qur-aanka ilaahay uu kaga hadlaya arrimaha hadda aan ka hadlayno akhlaaqada sabirka dulqaadka geesinimada dhiiranaanta runta beento aayaadka ilaahay uu kaga hadlaya arrimaha ilaa 5,000 aayadood baa lagu qiyaasa fiqiga waxaa loo yaqaana waa 500 aayadood laakiin aayaadka ka hadlaya dadnimada aayaadka qofka sameynaya qof saxa aayaadka sameynaya annagana waxaan u baahannahay qof saxaan u baahannahay qof reer Djibouti oo saxaan u baahannahay qof muslim oo saxaan u baahannahay gabar reer Djibouti oo saxaan u baahanay wiil reer Djibouti oo saxaan u baahanay maanta waxaan haynaa dad badan oo falsifiye ayaan haynaa nous sommes tous falsifiés maanta noloshu way naga wada qaldan tahay gidigeen waxaan u baahanay dad saxa 5,000 aayadood baa ka hadlaya qof saxa sidii loo ilaa qof saxa waxaan leenahay repair akhlaaqiyaadka marka laga hadlo ilaahay jalla wa ala wixii noo sameeyay quraankiisa repair noo sameeyay saddex ilaahay jalla wa ala wixii noo sameeyay de repère géographique physique et géographique nolosha inta noo la waxa noo sameeyay repero meelahan ku laabano oo la arki karo masaajid baa lagu sameeyay waxa la yiri kacbada u jeesta halkeen u jeesana salaada kacbada u jeesanayna repère physique kacbadu waa repère physique weeyaan c'est un repère physique géographique waxa la nagu yiri waa xuduntii adduunka waa xudurtii adduunka gidigii waxa la yiri xagga u jeesta qad nara تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره نبي محمد باجي على انه مكوجي صلى الله عليه وسلم لحية عندنا بالوتك محان كل بيت المقدس مركب النبي بيجي على كعبة إنه نقطة مكة إلهي وبري جدا مركز إلهي النبي الله وأنقل صعنا in madaxaaga aad ku celcelinayso samada ina ilaahay barayso leedahay ilaahow qibladeeda waxaad ka dhigtaa kacbada waa loo ballan qaado waxa la yiri kacbada u jeesan doontaa dhawaan 6 bilood kadib nabiga waxa lagu yiri kacbada u jeeso sallallahu alayhi wasallam c'est un repère physique kacbadu waxa la yiri waxay ku taalaa le centre du monde marka laga hadlayo adduunka xundurtii adduunka weeyaan waxay ku sheegaysaa adiga haddaad muslim tahay tu te situes au centre du monde tu es un élément central dans cette vie terrestre
noloshan adduunyada waxaa tahay tu un élément incontournable muslim haddaad tahay waxaa tahay qof aan siba loo dhaafi karin baa tahay maxaana lagu dhaafayn waxaa tahay saaxibu khuluqin cadiim waxaa tahay adduunku maanta wuxuu dumayaa akhlaaq alxumo waa zino nin loo dhisayo gabadh loo dhisayo adduunku wuxuu dumayaa akhlaaq alxumo adigu maxaa tahay tu es la source même de l'éthique et du moral waxaa tahay akhlaaqada wanaagsan meesha ay kasoo fulaysay ayaa adigu tahay adduunkaa ku baahan waxaa tahay le centre du monde maaha adduunku maanta uma baahna qof waxaysa lacag haysta adduunka intaasoo maray inaad lacag haysata c'est pas ça l'essentiel c'est le moral et l'éthique maanta adduunku wuxuu u baahan yahay uu dumaya akhlaaqad iyo dhaqan buu u baahan yahay adduunkaa inoo baahan haddaan muslimiina waxa laynoogu baahan yahay nous sommes les véritables détenteurs du véritable éthique du véritable moral waxaan nahay akhlaaqadii dhabta ahayd dadka kitaabkooda ku hayaamay maanta marka waxaa lagu yidhi qiblada kacbada u jeesaa lagu yidhi kacbaduna waxaan idhi waa le centre du monde adigu maxaa tahay tu te situes au centre du monde waxaa tahay adduunyada waxaad ka tahay halbowlo waxaan haynaa maanta inagu akhlaaqad éthique intact moral intact haddaan intaan leenahay maanta adduunka waxaan oran lahay waxaan iibinaynaa akhlaaqadaan dadka ka iibin lahay waayo adduunka inta badan wanagaana waa bila akhlaaqad hadda maraykankiisa uma ahayn akhlaaqada ciddii ugu saraysan inoo sheegi jiray qofkii shanaad oo madow oo la dilaa la socdaa maxaa loo dilayaa uu madowye on le tue parce qu'il est noir waa la dilayaa maxaa loo dilayaa parce qu'il est noir ayaa dilay nin cad baa dilaya la couleur de la peau fait la différence qofkan inuu madow yahay buu kaga duwan yahay qofkan inuu cad yahay qofka madow waxa la yidhi waa qof liito nolosha uma qalmayo uma saarana oo wixii laynoo gumaystay Djibouti Faransiis baa yimid waa layna gumaystay maxaa laynoo gumaystay waxa la yidhi waa madow waa badow nolosha uma qalmaan noloshaan u haynaynaa noloshaa laynoo hayay in nolosha laynoo hayay ilaa maanta waa wax jiro waa ka madow baa la leenayaa islaamkuna muxuu yidhi islaamkuna wuxuu leeyahay laa fadla lilcarabiyi cala alacjamiy qofka carabka uu leeyahay maxamed ili qofkaan carab ahayn kama fadli badan kullukum min aadam wa hada min turaab say baaliq del islam waxa la yiri war gidigii waxaad ka timaadeen ciid gidigii waxaad ka timaadeen nabiyullaahi aadam alayhi salaam nabiyullaahi aadam xaguu ka yimid ciid buu ka yimid baa vous êtes tous égaux buu yahay jalla wa ala gidigii waxaad tahay isku mid baatiin nabiyullaahi aadam baad ka timaadeen nabiyullaahi aadamna cariya ciid baa laga abuuray alayhi salaam say baaliq del islam maanta inagu waxaan haynaa war dadka adduunka waa la siman yahay Djibouti Soomaaliya Shiine Maraykan Faransiis Ingiriis ilaahay waa dadka abuuro waa la siman yahay baan inagu leenahay laakiin sidii maanta cid rumaysanay textuellement sur le plan textuel waa la rumaysanay sur le plan d'idée waa la rumaysanay laakiin pratiquement cid rumaysanay waa yartay marka akhlaaqada marka laga hadlo waxaan leenahay repérant leenahay waxaan u jeedaa marka laga hadlo maxaa repère physique baan leenahay oo qibladu waa repère physique qibladii waxaad igu oran way dhaartay agtaada waxaa lagaga sameeyey repère physique masaajid baa kugu dhow masaajidku si aan repère physique waad ka dhex arkaysaa masaajidku kuu muuqdaa adiga waxaa tahay masaajidkaad ka akhrisan dadnimadaada waxaad u doonanaysaa masaajidkaad geli waxaad ka soo baxaysaa adigoo qof oo fiican waad ku noqoni intii aad ka maqnayd wixii kaa daatay baa lagu buuxini ashak fois waad geli adoo buuxaad ka soo bixi waxbaa kaa daatay masaajidkaa kusoo bixin waa repère physique waxaa lagu leeyahay identitégaadu waa ka repère physique waa identitégaadu yahay masaajidku waa meesha laysku dhowro naftaa lagu ilaaliya waa repère physique masaajidka hadduu kugu dheeraado waxaa lagugu yidhi gurigaaga inaad ku tukato way ku banaantay haweenkii baa loo baneeyey ragga looma baneyn haddaad ku tukato waxaa la yidhi salaadaadii 27 darajadood ama 25 darajadood ayaa salaada masaajid aad ku tukato ay ka fadli badan tahay jamca taaqalkaaga aad ku tukato haweenkii waxa lagu guryaha ku tukadaan waa repère physique sajaadada meesha sajaadada aad ku tukanaysa meesha dhiganaysi waa repère physique halkaasi baraka leedahay asxaabta nabiga weerin jiray nabi Allah ii kaalay way casuumi jireen nabiga qada u sameeyana ma quraac markaa bay ku yiraahdeen nabi Allah meel ugu tuko guriyay sallallahu alayhi wasallam repère physique nabi Allah ii samee meel aan iska dhaxarko adigana aan ka dhaxarkay samee nabiga meel buu ugu tukanayay sallallahu alayhi wasallam markaa bay meesha ku tukan jireeno nabiga ilaahay meelkan ugu tukanayay sallallahu alayhi wasallam saasoo oran jiray radiyallahu anhu nabiga ilaahay wanaagsan sallallahu alayhi wasallam ayaalkan ugu tukaday walaalahay hadalkayga waan gabagabeynay marka laga hadlo waxyaabaha rumaysanayna ilaahay wuxuu noo sameeyay repère waa tawxiid marka laga hadlo akhlaaqiyaadka
shan kun oo aayadood buu ilaahay kaga warramay qur-aanko refer baa laynoo sameeyey marka laga hadlo refer physique meelaan eegano oon kulaallo oon hadhiyo habeen ka warhayno ku noqnoqono waxaa laynoo sameeyey masaajid iyo meelaha ilaahay lagu caabudo jalla wacalaa. waxaan jecelahay aniga hadalkayga intaa inaan ku daayo inaan iska sheekaysano wax isweydiino markaa siyaasad waan sheego hadalkayga waan qadimay aniga waxaan ahay diinta ilaahay baan sheegaa siyaasad hoosena inaan ka warramo ma jecli oon galo aniga dhaqankayga waa sida aniyo labadii sheekha saaxiibada ahayba ma rabno wax hoose inaan u dhaadhacno waayo walaal baan nahay reer Djibouti baan nahay siyaasadana waa aniga sheego waa lagu kala tagsanyay in lagu kala tagsanaadina waa sax cid walba waxay doonaysaa waxa weeye waddankeena si loo barwaaqoobo oo loo hagaago marka waxa danteena guuda aan ka wada hadalno wax ku saabsan su'aalo iska janaqaan haddii jirto aan ka jawaabi karana waan ka jawaabayaa mar labaad waad mahadsantihiin waad karaamaysan waad maamuseen waad sharafteen jazaakum allahu khayran wa barakallahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullah